nabadda wadayaalidii lahaantiinba kuna soo dhawaada mar kale iyo warbixinteennii toddobaadka ee garoonka Hargeysa Stadium ka qabsoomay kulankaas oo dhaxmaray ciyaaryahanada kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo dhigooda xidigaha cirka. Kulankani ayay labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan oo soo jiidatay daawadayaashii ku sugnaa garoonka Hargeysa Stadium, waxaana 90kii daqiiqo ee loogu talagalay uu ku soo gabagaboobay eber iyo eber. sidaasina ciyaaryahanada kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa soo fadhiistay miiska kala sarreynta horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa kaalinta saddexaad iyagoo ku fadhiya 25 dhibcood, halka ciyaaryahanada xidigaha cirka ay ku jiraan kaalinta toddobaad iyagoo haysta 14 dhibcood. daawadayaal imkana waxaynu eegi doonaa kulankii salaasadii ka qabsoomay garoonka Hargeysa Stadium oo ay isku wajaheen kooxda dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo dhigooda wasaaradda ganacsiga. kulankani oo kamid ahaa kulamadii 15aad ee horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa ayaa ku soo idlaaday 90kii daqiiqo 3 gool iyo hal ay ku badiyeen kooxda dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa, waxaana 3 gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada Sharmaaka Tom, Xamse CR iyo ciyaaryahan Abaadir oo kulankani bedel ku soo galay, halka uu goolka madiga u dhaliyay kooxda wasaaradda ganacsiga ciyaaryahan Muuse. sidaasina daawadayaal kooxda dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa sii xajisatay kaalinta labaad ee miiska kala sarreynta horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa iyagoo ku fadhiya 31 dhibcood. daawadayaal waxaa xusid mudan oo kulankani dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo ganacsiga laga diiwaan geliyay in ciyaaryahan Mawlid Kayse oo kamid ahaa ciyaaryahanadii dawladda hoose ee kulankani u saftay u qaatay kaarka casaanka ah, halka ay kooxda wasaaradda ganacsiga oo isna kaarka cas ka qaatay kabtankooda ay sida weyn ugu mahadiyeen ee Cabdicasiis Caag oo xidhiidhka kubadda cagta Soomaaliland uu isla toddobaadkani soo saaray in ciyaaryahankani uu ka maqnaan doono saaxadda kubadda cagta muddo hal sano ah. waa tahay daawadayaal imkana waxaynu eegi doonaa kulankii Arbacadii ka qabsoomay garoonka Hargeysa Stadium, kulankani oo martigeliyay labada kooxood ee xafiiltanka weyn ka dhaxeeyo ee ciidanka asluubta Soomaaliland iyo kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka. kulankanina waxaa garoonka Hargeysa Stadium mar kale iskeenay tababare Mustafa Khamle oo kulankiisii labaad hogaaminaya ciyaaryahanada kooxda ciidanka asluubta, waxaana uu kulankani ku soo dhamaaday 3 gool iyo 2 ay ku badiyeen ciyaaryahanada kooxda ciidanka asluubta. daawadayaal waxaa xusid mudan in kulankani uu si weyn uga dhex muuqday ciyaaryahankii xilli ciyaareedkani laga soo iibsaday kooxda wasaaradda horumarinta caafimaadka ciyaaryahan Cabdifataax Ganto oo kooxdiisa ka dhaliyay 2 gool, halka uu goolka kalena uu sii raacsaday ciyaaryahan Siciid Daalo. ciyaaryahanada kooxda wasaaradda caafimaadka ayaa 2 gool ay heleen waxa uu kala saxeexay ciyaaryahan Cabdi Waasac iyo ciyaaryahan Xasan Saas oo gool rikoodha u dhaliyay daqiiqadii 71aad. sidaasina waxa uu kulankani ku soo gabagaboobay 3 gool iyo 2 ay ku badiyeen ciyaaryahanada kooxda ciidanka asluubta Soomaaliland kulankii 15aad ee horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa. waa tahay daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa warbixintii aanu idinka soo tabinaynay kulamadii 15aad ee horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa. iminkana waxaynu eegi doonaa kulankii dhaxmaray maalinnimadii Khamiistii kooxaha Waxool iyo ciidanka booliska Soomaaliland ee Goodir. labadani kooxood ayay koox walbaaba ku hamiyeysay inay hesho 3 dhibcood ee yaalay garoonka Hargeysa Stadium. kulankani oo ay labada tababare ee Koofinde iyo tababare Jamaal Janta ay doonayeen in mid walbaaba uu garoonka Hargeysa Stadium ka helo 3 dhibcood ee yaalay ayaa waxa uu nasiib ku siiyay tababare Janta inuu sii dheereysto hogaanka horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa isagoo 1 gool iyo eber kaga badiyay dhigiisa Maxamuud Cabdi Xasan Koofinde. waxaana daawadayaal xusid mudan in kulankani ay hogaanka sii dheereysteen ciyaaryahanada kooxda ciidanka booliska Soomaaliland oo u baahan inay 3 dhibcood oo kaliya ka helaan Hargeysa Stadium si ay ugu guuleystaan mid kamid ah riyooyinkoodii oo ahaa inay mar uun ku guuleystaan horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa. waa tahay daawadayaal imkana waxaynu soo gaarnay gabagabadii warbixintii kulamadii 15aad ee horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa, waxaana uu kulankii maalinnimadii shalay ahaa u dhaxmaray kooxda militariga Soomaaliland ee gaashaan oo la ciyaareysay kooxda wasaaradda horumarinta biyaha. kulankani oo kamid ahaa kulamadii 15aad ee horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa ayaa ku soo idlaaday 2 gool iyo 1 ay ku badiyeen ciyaaryahanada kooxda wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland. waa tahay daawadayaal intaasi waxaynu ku soo koobi doonaa warbixinteennii aynu ku eegaynay kulamadii 15aad ee horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa.
intaynu barnaamij xiga ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh